Waxaan hubaa marar badan inaad daawatay fiidiyo Making Money Online looga sheekeynayo oo qaarkoodna ku qanciyeen, qaarna ay ku qancinin. Marka waayo waxaa mar walba micnaha dadka bulshadana hadda kusoo badanayo oo cashiradan la bixinayo Making Money Online ama crypto laga sheekeeyo ama forex laga sheekeeyo ama YouTube laga sheekeeyo ama qaar la dhaha TikTok soo gal, TikTok lacag laga sameeyaa, inta laga buusa. Aniga shakhsiyan kula hadlayo aan weligay TikTok ma gelin, telefoonkeyga weligay ma soo gashanin. Isma fahanina laakiin wallahi waa iga dhab. Weligay telefoonkeyga TikTok waa ii dhiman yahay. Iska daa inaan daawado telefoonkeyga maba soo gelin intuu u soo baxay. Facebook waa sax waa isticmaalaa laakiinse wax ma soo dhigo. Aniga meesha kaliya wax soo dhigo waa inaan YouTube wax soo gelinayo in marmarka qaarkood laga yaabaa in Instagram wax isaan soo yara dhaho personal aan leeyahay. Wax laga yaabaaba blogging ka caadiga website inaan micnaha article ku soo qoro waa laga yaabaa. Laakiinse Instagram iyo meesha I mean TikTok iyo meesha la yiraahdo meelahaas waa iga waxaysan tahay. Taasna marka waxay mar walba kugu tusinaysaa in qaabab badan oo online-ka lacag looga sameeyo dadka ay ku kala ra'yi duwan yihiin. Qofna uu ku dhahayo micnaha YouTube bas ka kacsan tahay, qofna uu ku dhahayo halkaan bay ka kacsan tahay, qofba meel micnaha uu jeclaysanayo. Marka waxaan rabaa maanta inaan kula wadaago war niyahow dadkaas oo dhan meel way kala sheegeen. Hata koorsooyin oo jiro dadka la bara qaarkood ay ku leeyihiin blogging si lacag loo sameeyo ku baraya, qaar waxay ku leeyihiin YouTube si lacag loo sameeyo ku baraya, lacagna intaas sii. Waxaana macquul waxyaalahaas hadda hadaad adiga waqti siisid oo aad raadiso micnaha waddo oo sax raadsid inaad kulli free ku hesho laga yaabaa. Marka waxaan rabaa video markuu dhamaado in maskax guuda oo cilmi buuxa aad ka qaadatid in horta online-ka lacag aad ka samayn kartid iyo in kale. Hadday micnaha adeeg tahay horta wax fudud ma jiraan wax walba waxaa loo baahan yahay waddada loo mari lahaa iyo adeegeeda way leeyihiin. Laakiinse adiga horta niyadaada markay ku soo dhacdo nin online lacag ka samee waa inay kugu soo dhacayso oo nin maxaa taqaanaa. Waayo online-ka waagi hore iyo hadda micnaha qaabku sii noqonayo walaa farqi u sii dhexeeya maayo. Waayo online-ka waagi hore xogaha baariyaabo lahaa wuu yara adkaa. Hadda laakiinse waxaad arkaysaa in voice over aad helaysid micnaha oo maxaa la dhahay AI uu kuu saari karo scriptiga ama video idea haddaad la imaadid uu kuu qori karo micnaha AI kuu qori karo. Editing un baa dhiman bas hadda qaarkood meelaha qaar inkastoo ay dhahaan editing-ka meel AI waa jiraa. Laakiinse micnaha waxaas dhan hadda marka qof micnaha adoo bilow haddana laguu sheego dadka horey ugu jiray oo sanadihii hore saas ilaa dadkan hadda 4 sano 5 sano kusoo jiray markii barnaamijkan loo sheego advantage u arkayaan micnaha inay faa'iido soo kororto u arkayaan. Laakiin adiga marka cusubta wax lagaaga sheekeeyo waxaad leedahay bismillah hadda way kasii dartaa leedahay. Awal hore telefoon isku soo joodi aheyd meelaha ka maqlay telefoon isku soo joodi micnaha ama kaleeto YouTube hoos kuma ama Instagram ama Facebook ama maqaalo soo qora intaas hadday sii gaartay micnaha waayo waxyaalihii micnaha teknolojiga sii koraayo wixii marka aqoontooda iyo kaasi durqayso. Marka waa inaad horta ku fikirtaa si simple ah rabaa inaan micnaha aan kuu fahansiiyo oo xalqadooyinka hadda aan sameynayo aan rabaa inaan all wada simple ka dhigo dhalinyarada micnaha si horta baariyagaas oo dadka micnaha ay leeyihiin baarin soo gelitaankeeda saas weeye waa adagta laga sheekeynayo xogaa bal simple kaaga yara dhigo. Haddii marka maanta adiga aad leedahay war aniga aslan horta online-ka qaabka hal mar aan rabaa inaan micnaha doolarka ugu horreeyay. Aniga waxaan is dhihi karaa aniga doolarka ugu horreeyay garab aan kugu siin karaa ku tusaayo waa $1 yaa tusaale ama dhururuqa laga yaabaa. Hadii micnaha lacag doolar calaamad doolarka wadato. Taasna waxay noqonaysaa marka ugu horreyso in horta aad dhahdid war niyahow meeshan gudaha online horta wax lagu soo gudbiyo lacag ka aruursada horta ha dambaysa. Laakiin horta dad baa loo soo gudbiyaa waxaana wax ka faa'iidaan bulsho. Dadka micnaha platform-yada iska leh oo kambaniyada iska leh dadka marka wuxuu soo gudbiyo platform-ka la dhex imaado ama xayeysiinta shirkadaha hadda kor waa ka sheekeynay lacagaha si shirkadaha looga sameeyo YouTube lacag looga sameeyo shirkadaha lacagaha ay keensanayaan YouTube inay qaarna qaadanaysa qaarna adiga ku siinayaan xayeysiintaasna shirkadda ay la imaanayso hore waa uga sheekeynay taas. Marka haddii marka adiga cilmi aad lahayn ama skills aad lahayn ama waxaad soo gudbisa aslanba aad haysanin ana waxaan ku dhihi lahaa lambar kow horta wax baro. Maxaa baran kartaa basic baro. Walaa hadda waxaan waxyaalaha arkaya qaarkood markaan arko aan la yaabaa. Waxaa arkaysaa dhalinyaro qaarkood xataa Excel-kan caadiga la isticmaalo. Most people computer ma soo baranin. Ama hadii kale computer but they have not access to it. Micnaha maba haystaan computer laga yaabaa. Excel-kaas caadiga iyo garanaynin oo micnaha aad computer waa computer markaa isticmaalaysid ayda ama Word laga isticmaalaa ama Excel laga isticmaalaa ama Access ama combination of it micnaha in la isku daro ama PowerPoint laga isticmaalo something like that. Waayo micnaha computer waa inuu shaqo fududeeyo ama inaad wax qoranaysid ama inaad wax edit garaysanaysid ama wax ku soo gudbinaysid micnaha wixii inuu kuu fududeeyo mar walba. Marka haddii marka skills-ka aan lahayn waa inaad skills is bartaa kuwa baro kadib dadkan haddana bar adiga uga faa'iiday. Muhiimadda waa inaad dadka u faa'iideynaysid. Mar labaad waa inaad dooran kartaa si online-ka lacag uga samaysid platform which platform micnaha aad platform-yada badan yihiin maan ku leeyahay platform oo luqad kala isticmaalayo ma aha wax kale laakiin waxa weeye social media-ga midkee rabtaa inaad ku soo biirtid. Haddaad TikTok ku soo biirisid waa platform. Haddaad YouTube ku soo biirisid another platform way. Haddaad Facebook leedahay oo Facebook lacag ka samee wax ku soo gudbina leedahay
all marka waxaa weeye ma ahan inaad qof wixiisa soo qaadanaysid oo soo gelinaysa maaha. Dadka qaarkood dhalinyaro waxaan arkaa marka qaarkood ila soo hadlo oo ay dhahaan iyo kaleeto reuse content aa lagu haystaa waxaas. Muhiimadda haddii aad xoog soo dhahdo war anigo waxaanan bartay dadkana waxaan u soo gudbinaya haddaad dhahdid wallahi I can guarantee you horta inaan reuse lagugu qabsan karin. Reuse laguma qabsanayo. Haddii aad micnaha channelkaada reaction yahay oo waxyaalo ka sheekeynaysa ama documentary waxyaalo ka sheekeynaysid si micnaha xoogaa maskaxiysan ma la isticmaala. Raggan waaweyn waa isticmaalaan oo documentary qaarkood ama fiidiyowyada qaar ay soo qaataan laakiin si micnaha xoogaa si maskax ku jirto aa loo isticmaali karaa. Taas marka haddii hataa aad micnaha fiidiyowda aad daawatid inaad ka micnaha xoogaa ka yara baratid that's better waa okay noqonaysaa. Laakiin waa inaad horta marka hore dhahdaa war xageen kusoo biiraya. Meelaha lagu soo biirayo waa meelahaas ama YouTube ama Facebook waa kusoo biiraysaa. Midka kale oo lagu soo biirayo oo micnaha inta hadda badan hadda aan sheegay aan ku jirinna waa inaad blogging noqonaysid ama tusaale ahaan website aad samaysanaysaa ama .com aad samaysan ama .net aad ka samaysan. Kaas marka waxaa weeye waxaad maqaalada kusoo gudbinaysaa. Waa noo soo socdaa video aan ka samayn doonaa qaabka step by step looga samayn lahaa oo aad ugu biiri lahayd video waan kaaga samayn doonaa insha Allah anigoo wax walbaba kuu taabanayo. Waayo qofka micnaha markii horta micnaha knowledge-ka uu helo kadib ayuu raadsan karaa. Laakiin horta waa in horta qofka micnaha wixii u iftiimin kartaa. Ani marka waxaan ku dhihi lahaa platform markaad dooratid haddana lambar 3 waxaad u baahan tahay horta qaabkee u soo gudbinaysaa. Ma hal daqiiqad miyaa mise 2 daqiiqo, 30 daqiiqo, cashiro soconaayo, 20 daqiiqo. Waayo hadda so far markaas waxaan isla ogaanay in aad u baahan tahay inaad horta wax taqaanid oo dadka wax baraysid, wax tusisid, wax un la wadaagaysid. Ha yaraato ama ha badnaato. Waxay ahaadeen horta qofku waxa kaa faa'iido. Wixii lagaa faa'iidayo daqiiqadaha intee leeyihiin. Ma 5 daqiiqo, ma 10 daqiiqo, ma 30 daqiiqo, ma cashiro dheer baa hal saac gaaraya miya? Ma live aad soo gelaysaa maantana waa dadka u sheekeynaysaa. Waxa adag micnaha taas adigana adiga ay kugu xiran tahay. Waayo marka qaarkood waxaa dhacdo dadka daawatid iyo xoogaa micnaha laga yaabaa inay dhiirigelin dheer aad ka heli weydo oo dhahdid niyo hebel studio leeyahay xag dambe waxa u yaala xagga leer baa ka haya meesha microphone roda u yaala wireless midkan halkan shaatiga ugu xiran mid kale saan u yeela. Dadkaas marka waxaa laga yaabaa inay gadaal kugu dhigaan oo micnaha aad leedahay dadkaas sidii yihiin iska dhig saa u leedahay qarash u bixinaysid yaa laga inaa ku daba dhimid. Marka aniga waxaan ku dhihi lahaa dadkaas waxba ha fiirinin. Dadkaas hadda bilaabisid aniga hadda kula hadlayo iska bilow waan iska ah. I don't think hadda inaan micnaha aan expert saaka ka dhigayo inuu wax yaqaan saaka ka dhigayo. Laakiin aniga channelkan waxaan kula soo wadaagaa bas war aniga waxaan aqaan kula wadaagaa bas inta aan garanayo. Horay inta hadda YouTube qaabka u shaqeyso sidee tahay RPM, CPM keeda wixii aan aqaanay waa idin la wadaagay. Waqti waa iska qaatay channelkayga almost aniga waxaa 8 bilood camal ka maqnaa. Hadda ka hor mar sanad waa ka maqnaa. Waa on and off waa iska ahay laakiin saas way tahay waxaan u maleynayaa taamkan inaan maqnaan doonin. Sorry inaan maqnaan doonin aan filayaa. Waayo waxaad arkaysaa micnaha mar walbo oo maqan tahay dadka oo ku tabayaan qof dad qaar oo kaa walwalaan waxay ku leeyihiin horta xageed ka baxda ma dhiman soo noosh. Marka dadkaas marka arkaysid oo micnaha high class iyo video iyo kaamirooyin balaayo wax ku duubaya yaysan gadaal ku dhigan. Nin walba meel buu ka soo bilaabo. Qof walbana qaab buu u soo gudbiyo adiga qaabkaada dooro. Maaha adiga sida dadka ay yeelayaan inaad geshid muhiim maaha. Hata kulligood iska wada disid yaa samaysan kartaa bas .net ama .com website samaysan kartaa. Xataa wararka caadi intaad soo gudbinaysid waayo warar waa tuuran yihiin meel war waa tuuran yahay. Caasimada .net iyo Kismaayo 24 iyo balaayo hadda maalinta isku soo war Al Jazeera, BBC wararka inta ka soo aruurisid dadka la soo wadaag micnaha waxaa noqdo website war loogu imaado ha noqdo la soo raadsid sida caasimada u tahay popular u tahay. Adna popular iska noqon kartaa waayo hadda Google ku qorto wararka maanta ku qortid waxaa laga yaabaa in BBC ay kuu soo baxdo caasimada kuu soo baxdo kaadan dhexda inuu soo gaalo laga yaabaa mustaqbalka haduu Ilaahay yiraahdo. Marka horta wax walba waa isku day iyo in micnaha horta lugaha dhulka ka qaadid horay u socoto fadhi ka kac. Marka ugu horeysana waxaa weeye horta wixii inaad horta isku daydid isku day waxaan ma sameynin iyo waan isku day iyo weli iskuma dayin farqa u dhaxeeyo. Isku day inta isku day waxaa laga yaabaa in micnaha ra'yiga hore aad ka haysatid ra'yi ka fiican oo kaaga soo baxa laga yaabaa. Wixiina degdeg inaysan meesha aad micnaha markay buurta ku fuulinin nin walba waa yaqaanaa. Hata businesska oo dadka hata businesska oo ka shaqeysto ganacsatada waa wada yaqaanaan. Mar walba faa'iido hore lagama fulo. Time ay qaadataa. Customer la dhisaa, base la iska dhisaa, foundation la iska dhisaa. Marka adigana intaas u wada baahan tahay. Marka making money online-ka yaanan micnaha wax waaweyn iyo meelan la gaari karin lagaaga dhigin. Waxaad u baahan tahay wadooyin tartiib inaad fuushid horena ugu socotid. Anigana meeshan waa kuu joogaa wax walba u baahan tahay kugu soo gudbin doonaa.